Somaliland ayaa doonaysa inay cilaaqaad siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid ganacsiba ay la yeelato dalka Masar sidaas waxa sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf oo u waramay warsidaha Daily News ee ka soo baxa dalka Masar. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland ayaa waxa uu xaqiijiyay in wafdi heerkiisu sarreeyay oo ka socday dowladda Masar ay toddobaadkii hore kulamo la yeesheen wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda, maalgashiga, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf Cismaan waxa uu intaas ku daray in wafdigani aanay ahayn kuwii u horreeyay ee ka socda Masar ee soo gaadhay Somaliland. waxaanu tilmaamay in wasiir ku-xigeenka dalka Masar u qaabilsan arrimaha Afrika Xamdi Loosa uu Somaliland yimid sanadii 2019 halka wasiir ku-xigeenka khaarijiga Somaliland uu isna booqday dalka Masar. waxa kale oo wasiir ku-xigeenka khaarijigu sheegay inay labada dal falanqeeyeen sidii ay Somaliland iyo Masar u yeelan lahaayeen isdhexgal bulsho. Liban Yusuf Cismaan waxa uu iftiimiyay in xiriirka Somaliland iyo Masar aanu dhaawacaynin cilaaqaadka Somaliland la leedahay dalka Itoobiya. wuxuuna cadeeyay in mowqifka Somaliland yahay in dalalka Itoobiya iyo Masar ay ka furdoomiyaan arrinta biyo xidheenka wada hadal iyo jawi degan oo xasiloon. waxa kale oo intaas ku daray inay Somaliland lafteedu dhexdhexaadin karto maadaama ay Itoobiya iyo Masar labadaba la leedahay xiriir wanaagsan. wasiir Liban waxa uu tilmaamay inay Masar khibrad u leedahay arrimaha macdanta oo ay Somaliland ka taageeri karto. waxaanu carabaabay inay Somaliland u dhoofin karto xoolaha nool oo inta badan iyadu dhoofiso. waxa kale oo uu sheegay inay Masar gacan ka geysan karto qadiyadda aqoonsiga Somaliland maadaama ay ka tirsan tahay Midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabtaba.